الرحمن الرحيم. marka ugu horeysa waxaan halkan ka salaamayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdigan ballaaran ee uu hogaaminayo ee inagu soo booqday gobolkan Daadmareed. waxaan leeyahay madaxweyne ku soo dhawow gobolkii Daadmareed way joogaan dadkaagi dalkuna waa dalkaagi dadkuna waa dadkaagi ayadoo aynu waqti kululna joogno salaadii jimcuhuna ay ina hayso waxaanu jeclayn haddaanu reer Daadmareed nahay intan in ka badan inaynu waqti isu helno waayo tabashooyinka iyaga badan. marka ugu horeysa madaxweyne waxaan ku xasuusinayaa haddaan wadadu dhamayn Daadmareed waxba uma dhama markiyada horeba waa mar labaadkee gobolkan Daadmareed waxa jooga dad fara badan oo tabaruc ku shaqeeya oo wasaaradda xanaanada wasaaradda waxbarashada iyo caafimaadka labadaba jooga. waxaanu codsanaynaa 43 macallin oo tabaruc ku shaqeeya oo wasaaradda waxbarashada dugsiyada ay xukunto ka shaqeeya marka ugu horeysa in bay warka dawladda loo geliyo. iskuullada gobolka ku yaala waa 43 iskuul 43 ka macallin ee jooga min maalintii iskuullada la furay ilaa maalinka maanta tabaruc ay ku shaqeeyaan. beenaala markhaatigiisu fogeeyabaa la yidhi barasaabkiiyo way joogaan maayarkube waxaa jira macallimiin markay dhowr bilood maqnaadaan ayagoo cabaadaya maayarka iyo barasaabka u yimaado yidhaahdo waar tuuladii baa neeriyanaysee naga reeba oo ay kaxeeyaan iyagu. aad baanu ugu dadaalay in gurnada lagu daro wasaaradda waxbarashada berigii dhaweydna waa tii loo kordhiyey macallimiinta. xitaa waxaan weyne sida uu guddoomiyaha waxbarashadu sheegay 8 macallin oo ka tegay gobolkan beddelkoodii aanu war beddel loo sameeyay 2 sanadood baanu daba sugan. aakhirtaankii maalin dhaweyd baa waxa la soo daayay afartii kale meel jiraan wali wariyo caalumo hayno. wasaaradda caafimaadka lafteeda 118 shaqaale ah ayaa joogo bayroorka dawladda aan ku jirin. haddaad shaqaale gobolkan ka qorilay kuwa muddada badan tabaruca ku shaqeynayay mudane madaxweyne bayroorka dawladda ha lagu daro. waxaan hadalkayga ku soo koobaya madaxweyne waan ku soo dhaweynaynaa baahiyaha iyaga waanu soo koobno barasaabka ayaanu u dhiibnay liiskii oo dhan. socdaalkii ka horreeyeed halkan timidna baahiyaa lagu dhiibay dadkuna inuu wax iska sheega maaha. baahiyaa liiskoodii waa la hayaa wixii qabsoomay cidina dafiiri maysa waa wax qabsoomay waana lagu qiraya. inta ka dhiman in loo dhammaystiro inta ka dhiman baahiyahayagii hore in loo dhammaystiro wixii kale ee la qaban karana in loogu daro ayaanu aad iyo aad u jecel lahay. waanu idin soo dhaweynaynaa qalbi furan gacmo furan niyadsan intaba ku soo dhawaada. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.